رئيس الوزراء حكومة كوميل غاركا Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maanta kuna la qaatay guddiga sportska Soomaaliyeed ayaa waxa uu kaga tacsiidiyay geeridii ku timid Allah u naxariistay Aadan Xaaji Yabarowish gudoomiyaha Olombikada Soomaaliyeed iyo Saciid Mugabe oo ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya kuwaasi oo ku geeriyooday qaraxii ka dhacay golaha murtida iyo madadaalada ee National Theatre. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ugu horeyntii waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bahda sportska u diray tacsi qaran geerida naxdinta lahayd ee ku timid walaalaheen gudoomiyaha Olombikada qaranka Soomaaliyeed Aadan Xaaji Yabarowish iyo madaxii xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Saciid Maxamed Nuur Mugabe gacanta xaqdaran baa dishay. dowladdu waxay bilowday baaritaan dhab ah oo ku wajahan sababta keentay in gabadhaasi ay soo gasho tiyaatarka oo ay qarax noocaas oo kale ah ka geysato gaar ahaan goob ay ku sugan yihiin mas-uuliyiintii dalka qaarkeed iyo madaxdii sportska dalka hadlay. رئيس الوزراء حكومة كوميل غاركا Soomaaliya mudane Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu baaqay mas'uuliyiinta xiriirka kubadda cagta Soomaaliya inay hooshooda sii wataan inaanu muujino in halgankoodii uusan noqon mid dhicisoobay oo fashilmay geeridooda laakiin aan sii waxaan naga guuleysteen markii runtii aanu fashilno laakiin markii aanu meesha ka sii wadno oo ayaga laftigooda ay taariikh u noqoto in dad la helo dad karti leh ee sii wada yani legacy-ga ay ka tageen sii wada waanu ka guulaysanaa dinaayada. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ra'iisul wasaaraha xukuumadda Kumeil Gaarka Soomaaliya ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay meel ugu soo wada horjeestaan ururka Al-Shabaab in cadawgan dhibta aragtay kaysanaya qaraxan kii koowaad ma kii labaad ma kii saddexaad ma marka cadawga isaga ah oo raba inuu xasuubo shacbiga Soomaaliyeed inaanu meel ugu soo wada jeesano gacmaha isqabsano shacbiga dowladda isla shaqeeyaan markaas ka guuleysan karnaa marka inaanu labanlaab dadaalkayaga ana kaga guuleysanayno cadawga waana waxa weeye runtii ay ku jiraan daqiiqadii wixii u dambeeyay weeye yani markii hadda laga guuleystay goobaha dagaalka inay dib ugu soo laabtaan shacbiga oo ay حسوقان ضد شعب وهو وحوى قرابسان وحي ويحكتوسا يسار دلي عدى فنطان يا القاعدة هي الشباب maalmo ka hor ayay ahayd markii qarax qasaare geystay uu ka dhacay xarunta golaha murtida iyo madadaalada ee National Theatre. Mustafa Maxamed Xiire, idaacadda Risaala, Muqdisho.